waxaan ku yimi maanta kormeerkiina caadiga ah oo ugu horeeyo baraarujinta koronihii waa sidiisii waan ka sii daray waliba magaalada Berbera waxaan ku wacyigelinayaa in ciidanku iska ilaaliyo corona ilaa wax ilaaliya waxaan leeyahay ciidanku aad iyo aad buu shaqeynayaa dadaalkii dekadii Berbera iyo dekadii iyo mataqaana muxuu badeeni sidii baa istaanbeen ugu nahay istaanbadu waa la kordhinayaa shaqadii waa la labanlaabayaa waxa weeye habeen iyo maalin waa soo jeedeen waa la sii badinayaa kormeerku waa badinaynaa habeen baan imaanaynaa maalin baan imaanaynaa aad iyo aad baan habeen u kormeeray baraha aad baa loo ilaalinay waa lagu ammaanaya laakiin waa shaqadeeni innagaan ku jiifaa dekada ay ka socdaan mataqaana dhaqaaluhu wax walba ay ka socdaan mataqaana casriga innagaan ku jiifaa waxaan leeyahay ciidanka aad baan ku baraarujinayaa ammaanka meel ka sarreysay hadda taagan tahay insha Allah in aqoon lahayd oo markii hore ku jirtay way jirtay inaan aqoon lahayn oo iska timidana way jirtay marka waxaan jecelahay in la soo wada gaaro oo yeelana kii hadlayay maraakiibta la hadlayay kii doonta kaxaynayay iyo kii aqoonta lahaa markay dhibitimaado intaba furfurayay iyo kii qoriga ridayay wiishkan yar waa wiish kabceed annagaa samaysano kan waa ka saara dooyaha ijinka isagaa qaadaya intood ijinka kor u qaado iyaad ku riixaysaa meeshaa doontaad ku geyn kartaa iminka waxaanu u samaynay baalkan had arkaysid ijinkii wuu saba joogayaa nafis buu ahaanaya laakiin marka la jiifiyo dhibaato keenaya waa shaqada maalinlaha ee la qabto in maalin walba la sifeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan kaloo ku faraxsanahay dhalinyarada uu waxbaray oo dhalinyarada uu baray injineerimeed uu baray ninkii uu baray haddeer hadduu naga maqan yahay xitaa ninkan baa dhammaynaya nin kale saddex nin kaloo maqan iyagaa dhammaynaya oo wax qabanaya oo mataqaana farsamaynaya ama dabka ha ahaato ama makaanikala ha ahaato marka insha allahu horaan u soconaynaa oo annaga isku tashanaynaa oo rabna in ciidanku uu wado in hawshooda shantii dooniyada kale halkaa yiileen waxa weeye oo injineerku u yimi niman baa uga yimi indiya uga yimi waxa weeye way eegeen way soo noqonayaan way u keenayaan qalabkii bay u keenayaan shantaasna hadday noo kacdo wax badan bayna taraysaa insha allahu horta waxaa la yidhi mataqaana ninku waa inuu wixiisa urursadaa oo diyaar garoobaa wixii dambana hala gaadho sidan kamaad ogolaateen kaalinta shidaalka ee aad macmiilka u tahay ha ka ogolaan shirkadaha kale ee adeegyada bixiya u soo wareeg Somtel oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 tayo waa Telesom